wasiirka ganacsiga Soomaaliya oo booqday warshadaha ugu waaweyn ee dalka Cumaan. Wariyahana Muniir Kaskay ayaa warkan inoo faahfaahinaya. wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa maanta booqasho ku tagay xarumaha warshadaha ugu waaweyn ee dalka Cumaan. mudane Cabdullaahi Cali Xasan ayaa waxa booqashadiisa ku wehelinayay xubno ka tirsan wasaaradda ganacsiga iyo safiirka Soomaaliya u joogo Cumaan Cabdiweli Cali Axmed Jeylaani iyo xubno kale. wasiirka iyo wafdigiisa ayaa ugu horeen booqday warshada soo saarta saliidda iyo warshada soo saarta sidoo kalena farsamaysa fiilooyinka xambaara internetka laga isticmaalo wadankaasi. wasiirka ayaa madaxa warshadaha kala hadlay sidii ay u maalgashan lahaayeen Soomaaliya, waxaana uu ku dhiirigeliyay in faracyo warshadahan oo kale ka furtaan gudaha dalka Soomaaliya. dhanka kale injineer Cabdullaahi Cali Xasan waxa uu la kulmay wasiirka wasaaradda gaadiidka ee saldanada Cumaan mudane Axmed bin Maxamed Al-Futaasi ahna gudoomiyaha shirkadda Asyad oo shirkad maamusha dekada iyo goobaha ganacsiga xorta ah. labada wasiir ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii ay iskaga kaashan lahaayeen ganacsiga iyo gaadiidka iyo sidii loo heli lahaa duulimaad toos oo isku xira Cumaan iyo Soomaaliya. waxay sidoo kale isla soo qaadeen sidii looga faa'iideysan lahaa marinbiyoodka isku xira badweynta Hindiya iyo Badda Cas oo uu maro ganacsiga ugu badan ee iskaga goosha qaaradaha Afrika iyo Aasiya iyo Yurub. wasiiradu waxa ay ka wada hadleen fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya, gaar ahaan dekedaha garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya, waxayna isla wada garteen in labada dhinac ay isdhaafsadaan aqoonta iyo khibradaha la xiriira ganacsiga gaadiidka. Muniir Muuse Bujeeti, Muniir Kaskay, SBS, Muqdisho.